in si dhexdhexaad ah aad u cabto bunka ama qaxwada waa badqab dhanka caafimaadka ah, laakiin inaad cabto maalintii 3 ilaa 4 koob oo bun ah ayaa leh faa'iido caafimaad, sida ku cad daraasad ay soo saartay shirkadda BMJ. Daraasadda ayaa lagu ogaaday in dadka caba bunka ama qaxwada badan ay yartahay halista ah inay ku dhacaan cudurrada beerka iyo qaar ka mid ah noocyada kansarka, iyo weliba inay yartahay halista in qofka madaxa dhiig kaga furmo. Balse daraasadda ma aysan caddayn cabidda bunka inuu sabab u yahay arrimahan. Daraasadda ayaa muujinaysa in hooyada marka ay uur leedahay misena aadka u cabto bunka uu waxyeelo u geysan karo. Khubarada ayaa ku talinaya in dadka aysan ku kicin cabidda qaxwada iyagoo caafimaad ka doonayo. Cilmi-baarayaashani ayaa waxay soo ururiyeen macluumaad la xiriira saamaynta uu bunka ku yeelan karo jirka bini'aadamka. Waxaa cilmi-baarayaasha ay tijaabo ku sameeyeen 200 oo daraasadood oo intooda badan laga sameeyey saamaynta cabidda bunka. Marka la isbarbar dhigo dadka aan cabin bunka iyo kuwa maalintii caba 3 koob, ayaa dadka caba waxaa la ogaaday inay yartahay khatarta ku aadan inay ku dhacaan cudurrada wadnaha amaba ayba u dhintaan. Faa'iidada ugu xooggan ee laga dhaxlo cabidda bunka ayaa ah in hoos u dhaco halista in qofka ay ku dhacaan cudurrada beerka oo uu ku jiro kansarka. Waxyaabaha lagu ogaaday daraasadda ayaa taageeraysa daraasado hore loo sameeyey oo ku saabsan cabidda bunka. Daraasadda ayaa ku talinaysa in haweenka uurka leh aysan cabin maalintii wax ka badan 200 oo milligaraam oo bun ah, sababtoo haddii ay cabaan qaxwo badan waxaa sare u kici kara halista ah inay ilmaha soo dilmaan. Waxa ay sidoo kale ku baaqayaan in loo baahan yahay in dadka caba bunka ay ogaadaan faa'iidooyinka caafimaad ee ku jirta cabidda bunka.